السلام عليكم سو دواada maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno imtixaan caalami ah oo la yiraahdo BLAB oo lagu soo gaabiyay Professional and Linguistic Assessment Board. Imtixaankan waxa laga leeyahay dalka UK ama United Kingdom. Imtixaankan wuxuu la mid yahay imtixaanka la yiraahdo USMLE oo ah United States of Medical License Examination, laakiin farqi badan u dhaxeeya. Imtixaankan runtii uu ka fudud yahay marka la fiiriyo USMLE-ga, uu ka raqiisan yahay, uu ka challenge yahay, uuna ka wanaagsan yahay 100%. imtixaankan waxa rabaa marka warbixin in ka siiyo oo qaybo badan ah. Waxa ku hormari doona pathway imtixaankan, okay? Pathway ko waxaan dhihi doonaa marka haysatid wax la yiraahdo degree-gaaga ama internship ataa jaamacadda aad dhamaysid, imtixaankan eligible u tahay waa gali kartaa. So waxa laga baahan yahay marka inaad gashid imtixaankan, waxa laga baahan yahay inaad gashid ko waa inaad haysataa shahaado la yiraahdo IELTS examination oo ah shahaado luqadda Ingiriiska inaad haysatid, ama inaad haysid occupational English test oo aydan si la mid ah IELTS examination ah. Labadaas midkood marka haysatid waxa lagu ogolaa doonaa inaad fariisatid BLAB-1ka. BLAB-1ka waa ka hadli doonaa wixiisa, laakiin waxa fariisan doontaa BLAB-1ka. BLAB-1ka marka fariisatid kadib waxa lagu sii doonaa wax la yiraahdo EPIC verification, okay? EPIC verification kaas marka qaadid kadib waxa haddana lagu ogolaa doonaa inaad gashid BLAB-2ga. BLAB-2ga marka gashid kadib waxa gali doontaa wax la yiraahdo foundational year, okay? anaga laakiin waxa uu naqaanaa internship, okay? Marka xagga tagtid waxa bilaawi doontaa internship oo 2 sano ah. Foundationka waa internship waxaana wadi doontaa up to 2 sano, okay? 2 sano marka wadid kadib waxa gali doontaa wax la yiraahdo residency, okay? Residency gali doontaa. Residency wuxuu qaadan doonaa 2 sano ilaa 6 sano. Residency-gaas marka ka baxid kadib waxa lagu sii doonaa wax la yiraahdo GMC registration, okay? GMC registration lagu sii doonaa. Sidoo kale waxaan noqon doontaa member of maxaa la yiraahdaa College of Physicians ama member Royal College aan noqon doontaa. Member Royal College marka noqoto kadib waxa qaadan doontaa wax la yiraahdo specialty training, okay? Haday waxa soo qaadatay wax la yiraahdo maxaa la yiraahdaa residency, tusaalahaan oo kale internal medicine aad dooratay, hadda specialty training aad qaadan doontaa oo ah cardiology aad dooran doontaa, endocrine, midkii specialty aad dooran doontaa. Kadib waxa noqon doontaa consultant, okay? So imtixaanka marka saas waa pathway-giisa. So examka ka hadalna marka examka waa labo, BLAB-1 iyo BLAB-2. BLAB-1ka markii la joogo horta waa easy, okay? Meel kasto aad joogtid waa ku gali kartaa imtixaankaas, laakiin waa wadankaaga inuu yahay wadan eligible u ah BLAB-ka inuu fariisto. BLAB-ka marka wuxuu ku fiican yahay, wuxuu leeyahay 180 su'aalood lagu keeni doona oo multiple choice ah. Waxa haysataa 3 saacadood. imtixaankana waa scoring, okay? Scoring waaye, laakiin no matter wax muhiim ah malaha score-ka waxa keentid sidii USMLE oo kale ma aha oo score-ka muhiim yahay. So BLAB-ka wax score muhiim ah ma aha, waa kaliya inaad soo baahistid imtixaanka. BLAB-2 waa ku soo haray. BLAB-2ga BLAB-1ku ka duwan yahay, okay? BLAB-1ka sidoo kale waxa muhiim ah idin sheegay muhiim tahay waa clinic waxa imtixaanka lagu keeni doono, wax basic ah kuma jiro, okay? BLAB-1ka waa clinic, so wax basic oo imtixaanka soo gali doona ma jiro. BLAB-2ga laakiin waxa lagu keeni doona waa OSCE. imtixaankaas kaliya waxa lagu galaa BLAB-2ga dalka UK ama United Kingdom ay doontaa. imtixaanka meesha ku gali doontaa waxa lagu kaliya ku gali doontin wuxuu noqon doonaa OSCE ama image sawir lagu weydii doono. 18 scenario kala lagu keeni doona, mid kasta 8 daqiiqo hayso doontaa, 3 saacan imtixaan ku jiri doontaa, okay? Hadaa marka BLAB-2 ku baastid waxa gali doontaa foundational year-kaaga, waxa gali doontaa residency-gaaga, waxa diyaar doontaa maxaa la yiraahdaa specialty training. imtixaankan marka hadaa rabtid inaad diyaarisid macnaha ma ka fudud yahay imtixaamada kale? Ha, imtixaankan kaliya waxa ku diyaari kartaa 3 bilood ilaa 4 bilood kaliya. laga soo bilaabo imtixaanka IELTS aad galaysid oo shahaadada soo qaadanaysid up to foundational year-ka aad soo gaaraysid kaliya waxa ku diyaari kartaa 3 bilood bis ama 4 bilood, okay? Wax weyn oo imtixaanka qaadanaya malaha. waa less challenge-giisu weyn yahay. imtixaanka marar badan aad fariisan kartaa, maxaa la yiraahdaa waana fudud yahay, waa very easy, waa very simple, okay? imtixaanka marka soo gashid aad soo dhamaysid kadib maxaa aniga igaga baxaya salary igaga baxaya macnaha cost igaga baxaya imtixaanka ma badan yahay mise waa yar yahay? Cost-ga imtixaanka ku baxaya runtii markii la barbardhigo maxaa la yiraahdaa USMLE-ga uu ka raqiisan yahay, aad uu raqiisan yahay. USMLE waxa laga yaabaa inay kaaga baxdo $20,000, laakiin BLAB-ka waxa kaaga bixaysa kaliya laga yaabaa 7,000 ilaa 8,000. bal aan xisaabino. IELTS-ka waxa lagu galaa $250, okay? ama hadaa dooratid occupational English test-ga waxa lagu galaa $587. so labadooda marka waxa fudud waxa la yiraahdo occupational English test-ga waxa la yiraahdo inta badan asaa fudud, inta badan asaa la galaa. shahaadadaas marka soo qaad kadib waxa fariisan doontaa BLAB-1ka. BLAB-1ka waxa laga qaadi doonaa lacag ahaan $316.
balaabunka markaa gashid balaab 2 waa gali doontaa. balaab 2 qaali waaye waa $158. balaab 2 markaa soo gashid kadib maxaa la yiraahdaa gali doontaa maxaa la yiraahdaa registration amari doontaa. Okay, registration waxa la yiraahdo oo maxaa la yiraahdaa full registration waxa mari doontaa registration kale. Okay, ayagana waxa way $60 ilaa $200 oo full registration ka ah. isku dar waxa laga yaabaa inay kaaga baxdo imtixaankaas $7,000 up to $8,000 kaliya. waxa laga yaabaa imtixaankaas haday badato inay kaaga baxdo, halka USLA ay gaari karto 20,000 wax ka badan inay gaarto. Okay, so salary-ga markii la isbarbardhigo marka salary-ga aad qaadanaysid ama waqtiyada aad shaqaynaysid waxa laga yaabaa marka UK tagtid waqtiyada aad shaqaynaysid isbuuci inay ahaadaan 4 maalmood oo kale, inta kale waxa laga yaabaa inaad haystid. laakiin dhibka jira wuxuu yahay less research waa. Okay, inta badan UK markii la joogo research-yada kuma badno, wuxuu ku badan yahay Mareykanka. so sidoo kale lacagta markii la barbardhigo United States-ka ama USA-ga ama USLA-ga badan. so imtixaanka marka waxyaabo uu ku xun yahay waxa waaye hadaa UK-ga aad tagtid aad shaqo ka aad dhameysid waxa la yiraahdo specialty training-ka consultant aan noqotid, shaqada UK inaad ka heshid ay tahay kama heli kartid oo adagta inaad shaqo ka heshid. Okay, waxay noqon doontaa inaad magaalada kale soo aadid sida Asia inaad soo aadid oo kale, wadamadan Dubai oo kale, wadamadan East Africa oo kale inaad soo aadid ama Asia. Okay, because inta badan markaa soo dhameysid maxaa la yiraahdaa balaab way adagtaa inaad shaqo wadanka UK ka heshid. so waa marka dhibaatada kaliya ee maxaa la yiraahdaa balaabka runtii uu leeyahay. so marka imtixaankan waa imtixaan caalami ah oo muhiim ah inaad maxaa la yiraahdaa baaritaan badan ku sameysid, xog badan aad raadisid. insha Allah imtixaamadii cusub iyo waxyaabihii oo maxaa la yiraahdaa update waxaan rajeyn doonaa ama insha Allah taala rajeynaa inaan soo wadaagno update idin ka dhigno waxyaabihii soo kordhana in la wadaagno insha Allah.